Soo dhawaad saaxiibayaal, musalsalka dhaxal qaybta sagaalaad waxay ka bilaabanaysaa maydka Fuad oo la baarayo. Kadib askariga waxa uu sheegayaa inay soo qaadaan dhammaan wax meesha yaala wax ay isaga soo tageen. In ayay ka helayaan telefoonka Fuad. Kale waxaan arkaynaa inay imaadeen bangiga. Dadkii bangiga jooga dhammaanna waa ay yaaban yihiin. Sababta ay booliska hubeysan halkan ay u soo gaareen. Ciidanku waxay wadayaan Daahir. Qays markaan qorshihiisa waa uu fulay. Waxaan ogaanaynaa inuu Qays ka dambeeyay in Daahir la xiro. Waxa uu ka qaatay telefoonkiisa. waxa uu uga qoray fariin Fuad. Oday Roble waxa uu ka xanaaqay arrinka meesha ka dhacay. Waxa uu leeyahay ninkii dhacay waa asaga. Haddii aan u raacanayaa lacagtayda. Qays uu sheegayaa in la bedelo dhammaan baasweerada uu ninkaas hayay asagana uu la wareego. Maba ogamiyaa inuu tuugi dhabta uu hadda u gacan galay. Halka kale waxa banaanka u soo baxaya Qays asagoo leh wax walba hadda way isku kay tooseen. Halka kale Roble xaaskiisa waxay canaananaysaa familka iyadoo leh khalad uu salahayn ayaa dusha ka saarayseen. Laakiin odaygu waxa uu sheegayaa inuu xafiiskiisa ku ballamiyay oo shaqo dalacsiin u sameeyay. Waxay u sheegaysaa inay habeen dambe guriga ku casuumaan qofna uusan ka maqnaan karin. Halka kale waxaan arkaynaa Duniya oo joogta meel xalfada. waxaana kor ka daawanaya Galad. Waxa uu keenayaa gifti ay ku jirta buug. Waxay weydiinaysaa magaciisa laakiin waxa uu ku leeyahay waxaad iigu wici kartaa Diiriye. Saaxiibteedna waxay u keenaysaa sawir gacmeed. waxayna leedahay hadiyad waaye iga guddoon iyadoon u sheegin qofkaas soo sawiray. Waxaanu arkaynaa inuu Galad ku faraxsan yahay inuu arko Duniya indhaheeda qabta. Waxaanu ogaanaynaa inuu Galad u soo dhiibay hadiyadda sawir gacmeedka iyadoona na tusayo inuu ku bixiyay lacag si loo sawiro sawirkeeda. Halka kale waxaanu arkaynaa Qays oo jooga gurigiisa isagoona gubaya warqadaha dhammaan caddeynta ahaa. Isla markiiba waxaa la soo garaacayaa albaabka. waxaanu tirtirayaa dhammaan caddeynaha isagoona Xasanna wuxuu aadayaa dhanka albaabka. waxa uu ka labalabeynayaa inuu albaabka furo laakiin ugu dambeyn albaabka waa uu furayaa. waxaanu ogaanayaa inay tahay alaab uu dirsaday. waxa uu ka soo qaadanayaa alaabta. Subaxdii xigtay waxaanu arkaynaa Qays oo la kulmaya shaqaalaha shirkadda isagoona u sheegaya waxa loo watay inaysan ka mid ahayn bangiga ay tahay arrimo asaga bareefad u ah. waxa uuna ka raaligelinayaa qaabka ay askarta meesha u soo gashay. waana uu uga mahadcelinayaa sidii macaamiisha ula dhaqmeen. waxa uu noo sheegayaa in hadda laga bilaabo asaga ay u soo gudbin doonaan wax walba warbixin ku saabsan bangiga. Halka kale Lookaan saaxiibkiisa oo sigaar iska cabaya waxa uu arkayaa ninkii dilay Lookaan aabihiis. waxa uu isku fiirinayaa sawirka iyo inay isleeyihiin qofka laakiin markuu ogaado waa uu dabagelayaa. waxa uu daba socdaba markuu ugu dambeysa waxa uu ka gelayaa albaab. markuu kasoo dabagalana waa uu weynayaa. waxa uu wacayaa saaxiibkiisa Lookaan. dhanka kale waxaanu arkaynaa Duniya iyadoo fiirinaysa hadiyadihii loo keenay. waxayna arkaysaa magaca ku qoran inuu yahay Galad Diiriye. waxayna fiirinaysaa buug hore loogu keenay. waxayna ogaanaysaa inuu u keenay hal qof labada buug. Lookaan waxa uu imaanayaa saaxiibkiis waxaanu ku leeyahay aaway ninka dhacay waa haya. waxa uu u sheegayaa inuusan meelaha ka dheereen. waxayna go'aansanayaan inay jaad soo qaataan halkanna ay fadhiistaan. dhanka kale Galad waxa uu imaanayaa guriga abtigiis waxaana banaanka kusoo dhaweynaya maamada iyo Nawaal. waxayna halkaas ku wada sheekaysanayaan familka dhan. dhanka kale Galad aabihiis waxa uu ka walwalayaa halka uu wiilkiisa jiro saacaddan. waxa uuna diidayaa inuu xaroodo. waxaana uu wacayaa Galad laakiin kama uu qabanayo. halka kale Hani waxay u sheegaysaa Galad inuu ahaa qofkii dhacay bangiga Daahir. isaguna waxa uu leeyahay supervisorka maxaa ku kalifay arrinkaas inuu sameeyo qof wanaagsan ayuuba ahaaye. uu iskaga soo tagayaa halkaas. markuu guriga imaado walaalkiis waxa uu sheegayaa inuu aabo maanta dhanka walwalaayay. waxa uuna ku leeyahay aabo inta maqnaa ma iga dabartid oo dhahada xafladu aaday iyo asxaabtiisu loo soo kulmaya. dhanka kale Qays waxa uu shaqaalayaasha siinayaa lacagta loo baahan yahay inay macaamiisha u sarifaan. maamulaha bangiga waxa uu la kulmayaa lawyer isagoona ku wareejiskan inuu xaliyo. dhanka kale Galad waxa uu imaanayaa saaxiibkiis waxaana ka codsanayaa furaha gaariga isagoona u sheegaya inuu dhowr baan soo haysan doono. saaxiibkiis waxa uu weydiinayaa waxa ku dhacay laakiin umuu sheegayo. dhowr mar markuu ku soo celiyo ugu dambeyn waxa uu u sheegayaa qofka uu afduubnaa inuu yahay abtigiis haddana uu rabo inuu dabagal ku sameeyo. marka uu guriga kasoo baxaya waxa uu GPS ku soo xiray gaariga abtigiis si uu ula socdo mar walba meesha uu joogo. waxa uuna hadeertaan oo la joogo tusayaa gaariga meesha uu taagan yahay. kale Haaruun waxaa loo soo xirayaa si loo toogto. markaana odayga iyo habarta iyo familka dhammaan ay oynayaan. ugu dambeyn waa la tooganaya. odayga godkiisa biyo u soo galeen. markaan camal Soomaalidu waxa ku maamaahdaa god khiyaana qodin haddaa qodidna ha dheereen ku dhici doontaa ma ogid. wax badan hanti uusan lahayn waa uu ku soo raaxaystay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka saaxiibayaal. hadday tahay marka ugu horeysa soo booqato subscribe soo dheh sidoo kale muuqaalkana like noo saar. aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibayaal. dhanka hoose faalada waxaa noogu reebtaan filimka oo dhammaystiran sidaan camal muu soo sameynaynaa. aad iyo aad mar kale u mahadsantihiin. intaa muuqaalkan iyo muuqaal kale ka kulmayno sidaas iyo maca salaama.